sababtu waxa weeyaan waxba la kala qarqarin anigu waxna ma qarsan garanaye war xanuuno badan oo aan ka qaaday tii hore ayaan dawadoodii la tacaalayaa sababtu waxa weeyaan meesha kolka lagu xil wasiir baad haysaa mushaarka iyo lacagaha lagu xaq u leedahay dawladda ku qoran macal marka la isku daro xilka gurnada 1500 iyo wax noocaas lacag noqonaysa dabeedna waxa lagu dhibayaa miisaaniyad shay walba lacag walba ay ku qoran tahay shaqo gaar in lagu qabto 1500 xaaladda maanta ku jirno iyo dalku siduu yahay baahida jirtay iyo dabcan wuxuu ma ka faynayso doolarna hata wixii kale ka soo galay meesha waa xaraan dawladdu markaa sanad shaqeeyay waa xanuunsaday dhakhtar baan tagayo dhakhtarkii wuxuu yidhi kalidu dhagaxaaga jira yaabayo dabadeedna sanadkii labaadna waa xanuunsaday dhakhtar baan tagayo wuxuu yidhi waxaad qabtaa dhiikar baad qabtaa dhiikar sanadkii saddexaad baa shaqeeyay waan xanuunsaday dhakhtarkii baan tagay dabadeedna wadnihii baaba sidiisii u shaqaynayn macnuhu waxa weeye wax aan ka badan mushaarkii wixii xaq aad u leedahay lagu qoray ee aad ku shaqaynaysay yaa ku soo galay waa xaaraantay war xaaraantii hore ilaahayga cafiyo xanuunadii iyo dhibaatadii ka qaaday ayaan dawadoodii iminka mashquul ku ahay ma doonayo ilaahayna baa ka hoos galay xil dambe oo aan loo hayn wixii aad ku shaqaynayso kugu filan oo xaq aanu yeelanayn diyaaru ma yihi wax dambe halka shilin dambe oo aanan iga soo galan meel dawlad shicibka iyo wadada masaakiinta waxooda adeero aanu diyaaru ma yihi inta horena Allah iga cafiyo inta hore caafimaadkeedii baan iyaga adeer waxbay raaciyaan kolka cuniyaan qaar baa casaado oo qurux badnaado ma garanayde laakiin anigu way ga dhantahay inta ka badan waxay dawladda soo galaan ma doo diyaar ma yihiin marka waxaan ka sheekeynayaa